السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Maal Maxmuud cashkan waxaynu ku baran doonaa tobankan erey meesha saaran ereyga koowaad waa tangle waa wax markay isku xirxirmaan yani they twist waliba qaab isku dhaxyaa inta badan waa yarka ama timaha they tangle easily si fudud ay wax arkaysa isku laalaamo marka you have to be very careful marka tinta ama fiilada markay isku laalaamto si xun u xirmataa yiraahdaa tangle ereyga labaad waa tenacious waa qof dadaalayo ee aanan isdhiibayn. For example, she is tenacious. Iyadu waa qof aad u dadaal badan. Somebody who is determined, persistent. Somebody who is not giving up. Qof aanan isdhiibayn. Ereyga saddexaad, terrestrial. Terrestrial waxaa loo isticmaalaa walxaha dhulka laga helo. Anything that is found on earth. For example, haddaan ku dhaho terrestrial animals waa xayawaanada ku nool dhulka. Ereyga afraad waxaa kaloo jira terrestrial opposite-keedu wuxuu noqonayaa extraterrestrial oo walxaha cirka iyo space meelahaas ku nool. Okay? Ereyga afraad testament waa caddayn proof. For example, haddaan ku dhaho his success is a testament to hard work. Dadaalkiisa ama guushiisa waxay caddayn ka tahay dadaalkiisa. It's an evidence of his hard work. Testament inta badan waxaa loo isticmaalaa aayad Bible-ka markaa soo qaadanaysid. Okay? The Old Testament Bible-kii hore duuga laga soo guuro. Inta badan marka Bible-ka waa la update gareeyaa. New Testament waa Bible-ka hadda cusub la haysto. King James Version I think. Old Testament waa Bible-ka hore. Yes. Ereyga shanaad therapeutic waa wax lagu daawoowayo. Yani waxaan haddii aad isticmaashid waad ku daawoobaysaa. Hadda for example inta badan waxay dhahaan walking is therapeutic. haddaa socotid waa daawo maskaxda u fiicanta. Yes. Ereyga lixaad tickle waa qof markaa qodqotaynaysa kelida ka taabanaysa wuu qoslayaa jilibka ka taabanaysa carruurta inta badan Ahmed likes to tickle the babies. Tickle marka waa ilmaha markaa qojeynaysid and then uu qoslay. So you touch somebody lightly and then they laugh. Yes. Ereyga toddobaad tilt waa wax markay dhinaca u leecaan. Yes. Tilt your head slightly madaxaada dhinacan u yara leexi lean camal. Okay, wax markay siman yihiinna level baa la yiraahdaa ama straightened. Ereyga siddeedaad waa tract waa dhul aad u weyn. For example, they bought a land tract. Dhul bay gateen. Tract waxaa kaloo loo isticmaalaa system ka mid ah jirkaad. Any system that is a system in your body. For example, waxaad maqlaysaa the digestive tract waa systemka dheefshiidka. waa wadada yani cuntada ay marto afka ka soo baxdaa dhuuntay soo martaa caloosha gashaa mindhicirada mashaadidna gadaal ka baxdaa. waa marka tract waa passage meesha ay marto. erey sagaalaad tram waa gaari. Okay, basku wuu ka yara weyn yahay. Okay, tareenkan wuu ka yari. inta badan isaga wadda ku socda wuxuu ku socdaa bahal yar oo sida yani kuwa tareenka ku socda. I hope inaad sawirkiisa Google ka raadin doonto. Tram waa sida tareenka oo kale laakiin uu ka duwan yahay. caasimadahuna ka dhex shaqeeya. Inta badan Ingiriiska iyo reer Yurub aad bay u isticmaalaan. Pointigan ka qaadaya pointiga lagu geen. caasimadu inta badan ka dhex shaqeeya. Ereyga tobanaad ee u dambeeyo waa turf waxaa la yiraahdaa cawska adag ee dhulka la dhigay lagu ciyaaro. inta badan hadda salaxay Soomaali dhahan. That's where they play football. Salaxaas turf baa la yiraahdaa. waa bahal yani cawska camal ah oo dhulka la dhigo deedna kubadda lagu dul ciyaaro. waa sida cawska kale grass. Yes. kaas ayaa la yiraahdaa turf. So yesterday I went and played on the turf. waxaan ku soo ciyaaray salax. cashka intaas uu ka yahay. Until next time, stay safe and God bless.